Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mar labaad ku soo laabtay. Handawed waxaan baalki la yiraahdo TikTok ka fiirsaday gabar la yiraahdo qaawan. Ani kuwin ma dhihi karay qaawan isku magac bixisay. Yacni dhehayso why meditationku uu ii saacideeyaa in ka badan salaada. Acuudu billahi min ashaytaani rajiim. Wax laga cuudu bilaysto waay because wuxuu isku saacideynaa inaan kuu sheegaa walaal. Jirkaagii baa banaanka yaalla, cawradaadii baa jirkaagii adigoo garan wato, rajaweeto wato, kastuumo wadatid baa social media soo fadhiisanaysaa, baa waxaa rabtid ku hadlaysaa, baa waxaad ka sheekeynaysaa waxaan diinta islaamka aysa ogoleen, baa waxaad ka hadlaysaa waxa adiga adoo dumar ah inaad afkaaga kala xishooto yacni ku habboon baa adiga ka hadlaysaa. marka goormay salaadi ku saacideynee ma salaad noocaas aad u dukanaysid adigoo tintaada banaanka taalo, adigoo qaawan, adigoo wadato rajabeeto, salaad aad micnaha dukanaysid, yani taas maxaad ka sugaya inay ku saacideyso? maya ha sugin, ku saacideyn mayso walaal. salaada waxay wax kugu qaban kartaa ama waxtar leedahay ama aad ku degaysaa ama aad ku hanuunaysaa markaad yaqiinteedii lagaaga baahnaa ka soo baxdo. gabadha islaamka waxaa loogu talagalay waa inay xijaabantaa walaal. xijaab now marka horenta adiga astur now, isxijaab markaad hadlaysana yani social media ka hadlaysa hataa yani wax kheyr ah oo ilaahay jecel yahay inaad ka hadasho. mar walba waxaad ka hadashaa waxyaabo qalad ah oo aan fiicneyn oo ummadda Soomaaliyeed qof walbo macnaha fasahaada aad sameynayso يعني aad ku hadlayso. gabdhaha Soomaaliyeed qaar badan yani inay adiga macnaha akhlaaqda aad sameynayso inay kugu raacaan, yani qaar badan oo yani ayagana yaqiintooda iska hooseyso inay kugu raacaan xataa waa ku taageernaa lagu dhaho ama aad ku hesho macnaha like macnaha views iyo waxa adiga ku taageero aad hesho baa laga yaabaa. aniga waxaan ku dhihi lahaa gabarey Soomaaliyeed waxa aad sameynayso oo macnaha qaldaad aad ku jirto walaalay, anigoo walaashay taa kuma caay karo inaan qalad adiga gaar ah kaa galana ma rabo. walaalay maanta waxaan ku dhihi lahaa xaq Allah ku tusiyo, xaq Allah ku tusiyo. waxaadna u baahan tahay wacdi badana u baahan tahay, waana badana u baahan tahay in Ilaahay uga toobad keento adi naftigaaga arrinkaas aad ku hadlayso, waxyaabo ku hadlayso. mar walba aad social media aad fadhiisadna waxaad ku soo gashaa shalay sawir kaaga arka xataa sarwaal cawrada ay qaawintaa wadatay. wax banaan maaha walaal. gabar islaam ah waxay xiratana ma ahan. qofka muslimka ah gabar ah haddana waxaa looga sii baahan yahay inay asturan tahay. asturnaashadu waa shay macnaha Ilaahay raalli ka yahay, diinteena noo sheegtay. marka inaad asturnaato aad iyo aad bay u fiican tahay walaal macanto. ma fahantay? salaadan waxay ku saacideynaysaa markaad asturan tahay, markaad adeecsan tahay horta yaqiinta adiga aa haysatay inay islaam aad tahay, aaminsan tahay. markaas adiga gaalku kugu daysan karaa meesha fiican adiga markaa samayso. laakiin adigiyaa waxaa samaynaysa tinta adigo banaanka taal kastuuma wato fashion hiblooyayaan samaynayaa iyo noocyadaas oo kaleente ilbaxan ah ilbaxnimo iyo waxaas waxba kuma tarayso. dhar la xirto oo garan la xirto iyo kilkishaada ku banaantaato cawradaada banaanka taal waxaan waa adduunyo waa ka tagaysaa, waa flower yiris guri qurxoon oo dhax fadhiso waxba ma tarayso walaal macanto. waxaa wax taraya yaqiintaada qalbigaaga mujeed halkaas waxa kuu fadhiyo baa muhiim ku ah walaal. ma fahantay? waxa waay ha fiirinin dalaalka gaalada ay haystaan iyo adduunyadan ha fiirinin, yaa lagugu sirin. yani waxaan ku dhihi lahaa is astur walaal macanto adoo xijaaban yaa wax walbay kuu qabanaysaa. salaada markaas waa ku nuurinaysaa, qalbigii kuu qaboojinaysaa. marteeshka aa sheegaysay way ka fiicnaanaysaa, waadna arki doontaa. soo baroobey erey waxa aan kuu sheegayno ku dhaqan. markaad soo aragto dhaqankii aan kuu sheegnay oo diinta Ilaahay kuu sheegay aad qaadato, hadday wax kuu tari weyso soo arag markaas ka bacday anakana la hadal. laakiin inta social media soo fadhiist waay meditationku ii saacideynaya in ka badan salaada. salaada cayaar maaha walaal. ha u maleynin adiga qof bini aadana oo waxaa noqon kartaa iyo waa caasi kartaa. ilaahay micnaha waa caasi kartaa, bini aadanka
qalad wuu ka dhici karaa, wuu caasi karaa, salaad la-aan waa kugu dhici kartaa, adoon tukan time kaaga dhaca waa dhici kartaa. laakiin ilaahay wuxuu ku dhaha iiga toobadkeen, ka toobadkeen, waxaad ku jirta ka qoomamee, ka laabo, ka soo laabo, ilaahay u laabo, dheh ilaahay qaladkaan kaa galay, yani mar dambe ma samayn doono, ilaahay inaad raalli iga noqotaa rabaa oo dembi dhaafkaas asaga awarsato. laakiin haddaa intaad meel soo fadhiisto tiraahdo adigiiyo jirkaagii oo qaaban yahay, garan wato ama cawradaada banaanka ay taalo, nin hebel micnaha maxaan ku falayaa nuucyadaan saana ahay, kanaan ahay, waxaa adiga aan loo joogan afkeyga usa karin adoo ka hadlayo, haddana inaad tiraahdo micnaha salaada waay ii saacideey la'dahay in ka baran meditationka uu ii saacideeya waay. waxaas waxaa keenayo qof kasta oo bini'aadan ah, markii adiga aad inta meel fadhiisato gacmahaaga saan inta isku qabsato ood maskaxdaada deganaan aa samaysid, wax walbaba qofka micnaha maskaxdaasi waa shaqaynaysaa, markaasi waxaad ka dhalinaysaa. laakiin salaadu waa shayga islaamnimada iyo muslimka lagu kala garto, muslimka iyo gaalka lagu kala garto. waa inaa ilaahay xariga adiga ilaahay nii dhexeeyaa weeye, xariga ilaahay iyo adiga nii dhexeeyo wey walaal. taasi wax inaad micnaha communicate ka keento ama ka hadasho maahan. marka waxaan ku dhihi lahaa walaaley, ilaahay uga toobadkeen, kana laabo, xijaabka xiro, adoo xijaaban social media soo fadhiiso, haddaa fadhiisanaysa assalaamu calaykum waraxmat, gabarey ilaahay u toobadkeen. meel walba joogtiin, dhaqanka gaaladana inay gabdhaha Soomaaliyeed ay qaataan wax fiican maahan, ha sameynina walaalayaal. waxyaabahaas dhalaalka arkaysiin gaalada ay kusoo jeedsanayaan, ay kusoo jeedanayaan, ha fiirinin. yaqiinta mar walba aad leedahay inaad raacdaa kuu fiican. marka walaashay maanta anigana waxaan ku dhihi lahaa, ilaahay ha kusoo hanuuniyo. hanuunku waa ilaahay cidood la doono siiyaa, laakiin adigu insha allah dadaalka sameey, toobadkeen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel walba ummadda Soomaaliyeed ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay aan ku aamaansado, xaqna allah nabada tusiyo, dhammaanteena aan isku wada duceyno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Shiine Cabdinuur oon idin leh walaalayaal. subscribe-tii, like-tii, share-ka hayga xasina ii soo saara insha allah walaalayaal. sidaas iyo nabadgelyo insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayr kale intaan ku kulmna insha allah. asalaamu calaykum.